Kansarka ku dhaca mindhicirrada waaweyn ee loo yaqaan colon cancer waa mid ka mid ah kansarrada ugu khatarsan ee aadanaha soo wajaha. Colon-ka waa mindhicirka waaweyn, waana qaybta ugu dambaysa tuubada dheer ee dheefshiidka. Colon cancer-ka waxa uu inta badan ku dhacaa dadka waaweyn, balse dadka kalena kama marna oo da' kasta waa uu asiibi karaa. Sida badan waxa uu ka bilowdaa unugyo yaryar oo urursama, sameeyana kuus loo yaqaano polyps oo aanan kansar ahayn, laakiin waqti dheer kadib qaar iyaga ka mida ayaa isu bedeli kara kansar. Kuusaskaasi ama waxa loo yaqaano polyps waxa ay ku samaysmaan gudaha mindhicirka, waxa ayna noqon karaan kuwo aad u yaryar oo aanan lahayn wax calaamada oo uu qofku ku ogaan karo inuu leeyahay iyo in kale. Sidaasi aawadeed ayayna dhakhaatiirtu ku taliyaan in qofku uu sameeyo baaritaanno xilliyaysan oo joogto ah, regular screening tests, si looga hortago kansarka mindhicirka waaweyn iyada oo xilli hore la ogaanayo, kadibna qalliin lagu saarayo ka hor inta aysan isu bedelin burooyin kansar ah oo asiiba mindhicirka waaweyn. Haddii uu qofka asiibo cudurkani kansarka mindhicirka waaweyn, waa la daaweyn karaa, waxaana jirto qaabab fara badan oo qofka looga caawin karo in la kontaroolo in uusan faafin cudurkani, waxaana ka mid ah qalliino kala duwan iyo qaabab kale oo la adeegsanayo radiation-ka ama radiation therapy. Waxaa kale oo la adeegsadaa daawooyin loo yaqaano chemotherapy iyo immunotherapy. Colon cancer-ka ama kansarka asiiba mindhicirrada waaweyn waxaa mararka qaarkood lagu magacaabaa colorectal cancer, iyada oo la mideynayo laba qayb oo ka tirsan tuubada dheer ee dheefshiidka, oo kala ah mindhicirka waaweyn iyo qaybta dambe ee toosan ee saxaradu ku ururto ee loo yaqaano rectum-ka. Haddaba maxay yihiin calaamadaha ay suurtagalka tahay inay kasoo daahiraan qofka uu asiibay colon cancer-ka ama kansarka ku dhaca mindhicirrada waaweyn? Waxaa ugu horeeyo wuxuu qofku isku arki karaa waxa loo yaqaano persistent change in your bowel habits, oo ah in ay isbedelaan dhaqan calooleedkaaga amaba socoshada calooshaada, oo marna aad yeelato calool fadhi, marna aad yeelato shuban. waxaa kaloo isku arki kartaa waxa loo yaqaano rectal bleeding, oo ah in qaybta dambe uu ka yimaado dhiig amaba saxaradaada aad ku aragto dhiig. Sidoo kale waxaa iman kara waxa loo yaqaano persistent abdominal discomfort, oo ah in aad dareento calool majiir amaba dibirsanaan. Wuxuu sidoo kaleeto qofka yeelan karaa caatoobid degdeg ah amaba miisaanka qofka oo isdhima. Dad badan oo uu asiibay cudurkan ayaa bilowgii hore aanan yeelanin wax calaamada ah ilaa uu cudurku noqday mid si weyn ugu faafay jirkooda. Haddaba goormay tahay inuu qofku dhakhtar booqdo? Haddii aad ogaato in aad leedahay calaamadaha aan kor ku soo xusnay middood, isla mar ahaantaana muddana ay ku hayso, waxaa habboon inaad dhakhtar booqato. Haddaba maxay yihiin waxyaalaha suurtagalka ah ee keena kansarka ku dhaca mindhicirka waaweyn? Dhakhaatiirta uma hubana waxa saxda ah ee keena kansarka mindhicirka. Si guud, kansarka ku dhaca mindhicirka waaweyn waxa uu bilowdaa marka unugyada caafimaadka qaba ee mindhicirrada hidde-sidahooda DNA-gu uu ku yimaado isbeddelka aan fiicnayn ee mutation-ka, kaasi oo bedela habkii taranka unugyada. Unugyada caafimaadka qaba way koraan, waa ayna qaybsamaan qaab jirku ka warhayo oo kontaroolan si shaqada jirka loo joogteeyo. Laakiin markii hidde-sidaha unugyada mindhicirrada uu gaaro damage ama dhaawac, waxa ay noqonayaan cancerous cells, waxa ayna samaynayaan qaybsan iyo korid uusan jirku awoodin inuu joojiyo, kadibna waxa ay samaynayaan urursan, waxa ayna noqonayaan buro. Marka ay waqti ka soo wareegatana, waxaa suuragal ah in unugyadii kansarka noqday ay sameeyaan waxa loo yaqaano invasion, amaba ay galaan kadibna burburiyaan unugyadii kale ee la jaalka ah ee caafimaadka
qabay. Sidoo kale waxay samayn karaan unugyadaasi jiran ee kansarka u asiibay in ay u socdaalaan meelo ka fogfog oo xubno caafimaad qabay ay ku beermaan, markaasi oo loo yaqaano metastasis. Haddaba maxay yihiin waxyaalaha ku nuglayn kara inuu ku asiibo kansarka mindhicirrada waaweyn? Waxaa ugu horreeya da'da. Dadka waaweyn markasta waa in ay iska warhayaan si guud caafimaadkooda, sababtoo ah markasta oo qofka da'diisa ay weynaato waxaa ku soo degdega cudurro uu ka mid yahay kansarka. Dadka da'doodu ee 50 sano kor u dhaaftay waa inay si gooniya isaga warhayaan, maadaama uu cudurkaani ku badan yahay. Sidoo kaleeto dadka dhaxal ahaan ayuu ugu gudbi karaa, sidaasi daraaddeed haddii qof ahalkaaga dhowaa uu cudurkaani asiibay waa inaad iska warhaysaa oo aad samaysaa baaritaanno waqtiyeysan adiga oo la tashi la samaynaya dhakhtarka ku takhasusay dheefshiidka iyo cudurradiisa. Sidoo kale dadka qaarkii ee qaba cudurrada loo yaqaano chronic inflammatory diseases oo ay ka mid yihiin cudurka ulcerative colitis-ka iyo Crohn's disease-ka waxa ay halis ugu jiraan inuu asiibo kansarka mindhicirka waaweyn. Waxaa iyana jira dad qaba noocyo cudurro syndromes la isku yiraahdo, kuwaasoo iyagana khatar ugu jira. waxaana ka mid ah dadka qaba waxa loo yaqaano familial adenomatous polyposis amaba FAP iyo cudurka kaleeto ee loo yaqaano hereditary non-polyposis colorectal cancer. Sidoo kale haddii cuntada aad cuntahay ay ku yartahay waxa loo yaqaano diet fiber-ka ama cuntooyinka qolofta iyo xargaha leh ee dhirta u badan, waxaad ku jirtaa khatar. oo cunooyinka aan cunno sida bariiska iyo baastada haddii aad si joogto ah u cunto waxaa kaa maqan cuntoodii muhiimka ahayd. Sidoo kale dadka buurbuuran, dadka sigaarka caba ama qaba cudurrada ay ka mid yihiin diabetic mellitus-ka ama macaanka, dhammaantood waxa ay halis ugu jiraan inuu cudurkaani asiibo. Si aad uga hortagtahay waxaa habboon in aad sanadkiiba mar ama labo midii aad awoodo aad baaritaan guud marto. Haddii aad calaamadaha aan kor ku soo xusno midood isku aragtana aad si halhaleel ah dhakhtarka u booqato.